أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنت السلام walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta adduunka joogtiin. waxaan idin rajaynayaa caafimaad iyo farxad inaad ku nooshihiin. waxaan samaysanayaa maanta qadada yarta insha Allah. marka insha Allah waxaan isla arkaynaa waxa ay ka kooban tahay. halkan waxa igu jira waa digaag insha Allah aan soo googostay nus digaag aan soo jarjara waa soo yiriiriis ka soo dhigo wax yar yar aan ka soo dhigo waa yaanyo laba xabo oo yaanyo aan soo yiriiriyay idana insha Allah. halkan waxa jira basal toon laba qaado oo ah bur xawaajigan aad ugu taqaanaan digaaga bisaan ku darsadaa milix yar laba koob iyo nus caano ah intaas ayuu ka kooban insha Allah. makaroni mashamal ayaan sameysanaynaa insha Allah. qishta waaye tan marka qishtaan hadda waxaan saas idinku tusaayo maanu gabar ii soo qortay igu tiri maamo maxaa waaye qishta hadday gabadhaasi fiirsanayso qishtada waa taasaa ingiriisiga kareem ah ku qoran laakiin carabiga waa qishta. marka kulli wadan kastoo la joogo way kala bedelan tahay laakiin waa noocaas maamo. saliidi dabkaan saartay basalaan ku shubtay marka waa qalaynaya basashan qalaynaya insha Allah. toonta ayaan ku darsanaya walaalahay ii soo dhawaada dhamaantiin kaliya laba ayaan idin jecelahay ii soo dhawaada dhamaantiin walaalahayga Soomaaliyeed ee sharafta iyo mudnaanta iga mudan. digaaga ayaan ku darsanaya akhwaati. digaag waa soo yariireystay waa inaa yariiriiska uu aadkaaga waaweyn yani uu sida oodkac oo kale inaa ka dhigatid waayo insha Allah. sida oodkac loo jaro oo kale ka dhigo. hilib waa ku samaysan kartaa alxabo maaji ayaan ku darsanay hilib haddaa haysid hilib ku samayso caadi waaye. waxaan ku darsanayaa waa xabasoodi waa filfil aswadkii filfil madoobeed iga raali noqda filfil madow waaye waa xawaajigan digaaga bisaan ku darsada ma sha Allah aadaan u jecelahay digaaga bis ah iska leh ma sha Allah. soo dhawaada walaalayaal. waxaan hadda samaysanayo waxa waaye waa sooskii aan saaran lahaa wixii aan kor ka saaran lahaa baastada subda waaye ama butter insha Allah. hal qaada camal aan ku ridanayo insha Allah qaadada kaamirada weyneynaysa waa hal qaada camal insha Allah. waa hal qaada camal daqiiqi labadii qaado oo burka ahayd ayaan ku darsadaa ama daqiiqa laba qaado ama malgacateyn waa isku qasanayaa ka bacdina caanaha ku darsanaya insha Allah. baastadan hadda waa hor waa soo sameeyay aniga oo janalkayga way ku jirtaa waa wixii aan ku bilaababa insha Allah. laakiin hadda maanta waa la dalbaday maadaama la dalbadayna waxaan dhahay gali insha Allah maadaama wax kale hadda aysan diyaar ahayn. digsiga baastadan ku karsanaa insha Allah walaalayaal. isku qasa markaas subdada ay subaga caadiga waa ku samaysan kartaa saliidda xataa waa ku samaysan kartaa laakiin dacam fiican ma yeelanayso saliidda. biyahan ayaan ku shubanayaa baastadii walaalayaal. baasta dheer waaye waa soo jajabiyay anaa soo jajabiyay baasta dheer waaye waa soo jarjaray insha Allah. waa soo yariireeyay soo jajabiyay yani asha iyadoo dheer kuma shubi kartid milixaan ku darsaday shan baastada loogu talagalay oo balbalaarka ah uma baahnid tan haddaa haysato ama makaroni ha noqoto ta dheertaa jajabsasan u samayso qasab kuguma ina taas aad tiraahdo taas una laga sameeyaa baasta lasaanya ama baasta mashamil. kan qaqaso insha Allah. caanihi ayaan ku darsaday laba koob iyo nus waaye aniga laakiin intaa doonta caanaha uga dhigaadi. marka hadda kor waa soo geli waa idin sheegay laakiin marka waxaan ku sameeyay on sooskan uga dhiga nisha ayay ahayd. hadda laakiin waa burkii iyo daqiiqi waa sideedii ahayd dariiqadeeda saxda waaye laakiin nishaada waxaan ku jeclaa aniga khafiif ay ka dhigtaa yani hadda maanta xoogaa waxa waaye aad u isu qabsanaya cashan waa burka. marka ma sha Allah. soo dhawaada walaalayaal walaalahayga cusub kal iyo laba igu soo dhawaada insha Allah. walaalo badan ayaa ii soo galay saakala khayr ayaa idin leeyahay. mahum makaan meel kasta oo joogtiin Allah idinku xafido insha Allah. ii soo dhawaada walaalayaal wala mahadsantihiin. ilaahay ajir ha idinka siiyo wax kasta oo qof walaal uga farxido ajir ayaa laga helayaa intuu doono ha noqdo wixii khayr ah waxaan khayr ahayn waxba ma ahan. marka soo dhawaada waa kana caanihiisaan igu karkarayaan waxaan ku darsanaa wax yar oo argaana ah
orgaano yaraan ku darsada cashaan caraf uu noqonayaa marka soo dhawaada qishtadii ayaan ku darsanayaa qishtada qasabka kuma inaa ku darsato laakiin ciyaalkayga jecel inay markay cunaya makroonada ay sida kareem ugu soo dhadhanta ayay rabaan insha Allah laakiin qasabka uma ahan inaa ku darto qishtada laakiin iyaga jecel ciyaalkayga jecel kareem ay u soo dhadhamaysa insha Allah marka walaalo ii soo dhawaada waxaan ka wadaa macnaha wixii qayr ah hadda cuntada la karinayo wax dhiba ma ahan waa cunto aad karinaysid cuntadan inta soo kariso aad meesha soo dhigtay qofna adii lacag kuuma siinaysaa dabcan laakiin waxa waaye walaalihii way ka faa'iideysanayaan adigana waa ka faa'iideysanaysaa marka waa la kala faa'iideysanayaa qof maanta aan aqoonana baranaya intaasna ajir ay ugu jira ayadan inta yar isida scrapka ajir ayaa ugu jira wixii kale ilaahay iga siiyan waan ka helaya insha Allah ayadan ajir weyn ka helaysa marka soo dhawaada wax yar oo waxaan ku shubtay oo ah saxankii aan ku shubala waaye salka waxaan u dhigay sooski marka hore bas waxaan ku shubanayaa baasadii insha Allah in yar oo marka hore waxaan ku shubay sooska caddaa oo sameeyay waa hilibkii digaagga aan soo samaystay hilib waa iska yar digaagga aan soo samaystay waaye insha Allah waa inaad dhacaan yar u yeelato insha Allah oo sakaa qalaylka noqon wax yar oo hadana sooska caddaa oo sameeyay ayaan ku shubay hadana makroonada ayaan ku wada shubay korka wada shubay insha Allah marka walaalahay ii soo dhawaada dhamaantiin walaalahay aan jecelahay kal iyo laab ii soo dhawaada walaalahay hore insha Allah asla socon sidaan usoo soo jirnay insha Allah dhiirigelinta iyo maxay tahay waxyaabo ii soo qariyay ajir ilaahay ka siiyo sababta dhiirigelin waa qofku markuu wuxuu soo dhigo maxay tahay dhiirigelin waa dhiirigelin waxyaabo kale ayuu sii qaban doonaa insha Allah wana dhamaantiin aniga kaliya maahan walaalaha dhan loo sameeyo ayaan leeyahay insha Allah si dhiirigelin asla socon walaalayaal walaalahayga cusub soo dhawaada kal iyo laab sidaan idin dhahay ii soo dhawaada waa subda yar oo gogoyna waxaan kor ka saartay furunka ayaan geliyay waana ka soo baxsaday waa kana saan ayuu noogu soo baxay ma sha Allah tabarakallah si fiican ayuu isku qabsaday ashan waxa waaye waa daqiiqa ama burka ma sha Allah macaankana ana idin dhadhamiyay فيتامين زائد ولاية ما شاء الله وإن بشي بهالمر حتى سميسته ما شاء الله آدي وفيها بشي بهالمر هذا رمضان النسل إلهي نبذها نقول كارسي وحيامها واللو باهي اللي فائدة يستك فائدة يستوى ليال سبسكرايب لايك الشير كانوا حكينا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إذا كتبت وأنا بقولش محمد آدي الجهل أعامل أصدقائي بمحبة ورفق لأن